السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي سو دوادا waxaa idiin wadaa nabraha madmadowga jirka kaa qayrmay waxay alaab dabiici ah oo aad isaga suurinaysid alaabtaas oo dhan wejiga saliidda leh sidoo kale wejiga wax kuu dhalaalinayo maasha allah alaabtan maanta haysano waa maba dhici karta guri Soomaali ah in laga waayo maxaa yeelay dhaqankeenaba ah maalin walba ku qadayna waa shayaash halka kaaga muuqdo laakiin ma ahan sida ay tahay waxaan isticmaalaynaa mooska laakiin mooska uma baahnin waxaan u baahanahay waa qubkiisa inta mooska diirtid qashinkan ku dari jirtay maya hada istaaji ha ku darin qashinka isticmaal subax walba alaabtan waa arki doontaa faa'iidada uu leeyahay mooska diirkiisa wuxuu jirka ka ilaaliyaa gabow inuu soo galo oo soo duudumo wuxuuna siiyaa cadaan waxa uu maxaan ku dhahaa jirka sidoo kale waxyaalo badan oo kala loo isticmaalaa laakiin maanta anaga waxaan isticmaalanaa inaan madmadowga nabraha uu daweeyaa oo maxaan ku rahdaa uu dawo u yahay maanta waxaan isticmaalaynaa anaga inaan meelaha jirka madmadowga ah iyo cadayn inuu jirka noo cadeeyo iyo inuu madmadowga dhan naga saaro maasha allah alaabtan oo gurigaaga ku taalo maalin walba xaafadaada ku heshid ma laga yaabi doono inaad aadid wax kiimika ah ama aa istiraahid waxaan ku radaa maalin walba qashinka ku ridayaa markaa baratid adiga ogaan doona faa'iidada ay leedahay soo dhawaada dhala jooga insha allah ilaa fiidiyoga dhammaadkiisa haddii aad ka heshaan like saar share subscribe channelkeena daryeelka jirka sidoo kale waxaan bilaabanaynaa hawsheena qabashadeeda insha allah waase arkaynaa waxyaalahan samaynayna iyo waxay ka kooban yihiin faa'iidooyinka uu leeyahayna insha allah waa idinla wadaagayaa qobka mooska ama diirka mooska waxyaalaha uu leeyahay asagana uu aad idinka aad u yaabi doono markaa daawataan insha allah iyo sida kuu caddayn doono marka waxaan u baahanahay mooska ma wada isticmaali doono waxaan u baahanahay haaf yar oo qub yar ah waa kala goynayaa sidoo kale uma baahni maxaan ku dhahaa mooska ku dhex jirana uma baahni soo mooska ku dhex jiraan kasoo saaraya waxaan u baahanahay qubka besa inaan isticmaalo oo aan diirka besa jarjarto ma rabo inaan wax badan aad ah isticmaalo sidoo kale waxaa fiican mooska intii markaa isticmaalaysid adiga oo aad markaa wejigaaga marsanaysid maanta kale markaa ku qaday sidoo kale xabadaas diirkeeda meesha qashin ku tuuri lahayd ka faa'iidayso waa jarjaraynaa markaa aad ba u soo yaryaraynaysaa waa iska soo dhaqaysaa sidoo kale markaa jarjartid marka horena waa soo dhaqnay mooska marka si maxaa yeelay daawo ahaan baa u isticmaalaysaa wejiga qurxin ahaan baa u isticmaalaysaa waxaa fiican nadaafadiisa inaad aad uga soo taxadartid waa soo dhaqnay maasha allah baa kasoo dhignay aad baan usoo nadiifinay maxaan ku dhahay marka intaan hadda isku soo waxaynaynaa waxaan isticmaalaynaa waa mooskan diirkiisa iyo liindhanaantan waxaa kaloo isticmaalaynaa waa bariis aan soo shiidnay bariiska waxaa ogtahay siduu qofka u caddeeyo wejiga saliidda leh aad buu kaaga soo dhuuqayaa saliidda dhan buu kaasoo saarayaa wejiga qalaylka ahna asagana waxaa fiican saliid yar qofka inuu ku darsado maasha allah cadaan siyaada ah buu siinayaa waa ogtahay malabku faa'iidooyinku leeyahay dawo ahaantuu leeyahay siduu dawo u yahay qof walba oo muslimna wuu ogyahay qur-aankeena inoo sheegay waxyaalaha nabraha soo baxa waa daweeyaa wejiga waa caddeeyaa oo waa qurxiyaa haddii ilaha ku ranya midowga xataa wuu kaa qaadayaa asagana dee waaba dawo ilaahay inoo sheegay faa'iidaduu leeyahay marka mooskan waxaan ku shiidaynaa insha allah shiidada caadiga waa ku ridaynaa waxaan ku daraynaa waa arkaynaa insha allah waa kan mooskii waxaan ku shubnay maasha allah dhaladaa ku shubnay waxaan isticmaalaynaa sidoo kale jeex liindhanaanta maasha allah wejiga waxay ka dhigtaa subaxaas haddaa intaa wejiga ku dhaqatid keligeeda xataa aad wax kala marsanin waxa uma baahanaysid make-up inaa marsatid iyo bahalkii wejigaaga aad buu kugu dhalaalayaa oo u yahay waxa amarsanaya ma jeclin inay liindhanaan ka maqnaato laakiin dadka way dhici kartaa inay allergy ku tahay ama wax kale aysi kaa yihiin markaasoo kale waa bedelan kartaa waa iska dayin kartaa haddii adigu aan allergy ku tahay ama wejiga kaa xanuujiso waxyaala waxaa ku bedelan kartaa biyo caadiya sidoo kale hadda anaga wax yaro biyaa waa ku daraynaa waa iskula soo shiidaynaa wax yaro biyaa waa ku daraynaa waa isla soo shiidaynaa markaas haddana isku qasqasaynaa ما شاء الله halkan waxayna kugu jiro mooski
jablin dhanaan ku tuqsanay waxaan ku daraynaa sidoo kale briskii noo soo shiidna marka hore aan soo isticmaalnay wuu shiidan yahay haddaa rabtid markaad bannaanka haysid baa ku daraysaa haddii kalena marka kale waxaan ku daraynaa wax yar oo biyo ah waxaan rabnaa alaab yaroo hadda marka aan marsano oo isku soo urursan intaasaan biyaha ka dhigayna qiyaasta uma fiicna inay aad biyo kaaga noqoto maasha allah waa tana oo isku soo shiiday saasaan waxaan uga soo dhigay maasha allah waa isla arkaynaa marka aa ujeedaan haddaa rabtid adigu waa kasi adkeyn kartaa oo diirkaaga iyo waxaan ku daraynaa insha allah wax yar oo malaba si fiican isku wala haddii aad is leedahay waxyaalihii si fiican ma shiidmin horena si fiican usoo shiid adaa yaabi doona alaabtan haddaa wajigaaga marisid nabro iskuma arkaysid haare ma arkaysid midmadow dhan ma arkaysid nabro oo kugu madabaaday oo meesha inta soo baxeen marka hore marka dambe madabaaday daw xataa nabraha u yahay mooska diirkiisa quruxda iyo dhalaalku kaa dhigi doonana waa yaabi doontaan noocyo badan baa loo isticmaalaa mooska diirkiisa waxyaalo badan waa ka qabtaa wejiga annagoo waa soo gelin doonaa insha allah annagoo siyaalo badan oo kala duwan u isticmaali doono maanta waxaan doortay sida ugu yar oo ugu maxaan ku rahdaa meel walba oo ka mid ah qofku uu heli karo sida ugu badan oo qofku uu heli karo macnihiis sida ugu yar meel walba oo loogu heli karo waxyaalaha aan dhibta badan lahayn baa maanta soo doortay insha allah moos iyo liin dhanaan guryaheena soomaalida maasha allah ma dhici karto in laga waayo macquulna ma noqon karto malabkuna sidoo kale dad muslimaan nahay dawo inuu yahay baan ognahay aad baynu u isticmaalnaa asagana daawadiisana uu aayay maxaan ku rahdaa faa'iidooyin badan uu leedahay madmadowga iyo waxyaalahaas dhan asaguna uu tiraa asxaab badan oo isoo weydiisa waxyaalaha madmadowga iyo wejiga saliidda leh iyo wixii lagu biyabi'in lahaa nabrahaas aada u mahadsantiin dhammaantiin waa soo wadnaa waxyaalo badan oo kale fideoyo badan aad ku qanci doontaan haddii aad fideoga ka hesha shaargare like sidoo kalena subscribe dheg channelkeena daryeelka jirka aada u mahadsantihiin walaafiya asxaabteena